Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kusoo dhawaada cashir ku saabsan barashada luqadda ingiriisiga. Cashirkaani wuxuu ku saabsan yahay barashada maalmaha isbuuca ee luqadda ingiriisiga. Waxaan baran doonaa maanta cashir aad iyo aad muhiim u ah oo dadka basic ingiriisiga luqadda ingiriisiga asaasiga baranaya muhiim u sii ah. aan ku bilaabo fasiraada cashirka. Magacayga waa Cabdi. Cashirkaana dhegeysta, la socda fasiraadiisa kana faa'iideysta. Days of the week, maalmaha isbuuca. Days of the week, maalmaha isbuuca. Monday waa Isniinta. Tuesday waa Talaadada. Wednesday waa Arbacada. Thursday waa Khamiista. Friday waa Jimcaha. Saturday waa Sabtiga. Sunday waa Axada. aan ku celiyo. Days of the week, maalmaha isbuuca ayaa halkan ku barneynaa sida loogu dhaho luqadda ingiriisiga. Marka cashirkan waa cashir aad iyo aad muhiim u ah oo maalin kasto daily use Englishka maalin kasta la isticmaalo. Loo isticmaalo ereyadana waa ereyo mar kasta la isticmaalo. Marka balan sameysanaysid maalintaas imaa lagu dhaho, markaad meel aadaysid maalintaas aad dhehaysid sidoo kale. Monday waa Isniinta. Tuesday waa Talaadada. Wednesday waa Arbacada. Thursday waa Khamiista. Friday waa Jimcaha. Saturday waa Sabtiga. Sunday waa Axada. Marka qaybta labaad waxaan ku arki doonaa ayagoo ku jira jumlado si aad ugu fahantiin sida loo isticmaalo toddobada maalin luqadda ingiriisiga. I was busy last Monday. Waxaan ahaa mashquul Isniintii lasoo dhaafay. Last waa lasoo dhaafay, Mondayna waa Isniintii. I was busy last Monday. Waxaan ahaa mashquul Isniintii lasoo dhaafay. We met on Tuesday. Waxaan kulannay maalintii Talaadada. She was born on Wednesday. Waxay dhalatay iyada Arbacada. Maalin Arbaca ayay dhalatay iyada. She was born on a Wednesday. Maalin Arbaco ayay dhalatay iyada. Are you busy next Thursday? Mashquul ma tahay Khamiista soo socota? Are you busy next Thursday? Mashquul ma tahay maalinta Khamiista soo socota? I visit waxaan booqdaa my parents waalidiinteeda every Friday. Jimco kasto waxaan booqdaa waalidiinteeda. I visit waxaan booqdaa my parents waalidiinteeda every Friday. Jimco kasto. It is Saturday today. Maanta waa Sabti. It is Saturday today. Maanta waa Sabti. Tomorrow is Sunday. Berito waa Axad. Marka aan ku celiyo. I was busy last Monday. Isniintii lasoo dhaafay waxaan ahaa mashquul. We met on Tuesday. Waxaan kulannay maalintii Talaadada. She was born on Wednesday. Waxay dhalatay maalin Arbaca. Are you busy next Thursday? Khamiista soo socota mashquul miyaa tahay? I visit waxaan booqdaa my parents waalidiinteeda every Friday. Jimco kasto. It is Saturday today. Maanta waa maalin Sabti ah. Tomorrow, berito
is Sunday waa Axad. Waxaan u gudbi doonaa qaybta ugu dambeysa ee casharka. La soco sii daawo si aad casharka uga faa'iidaysato. Meeshaan waxaa ku baranaysaa maalinta markaa waxaa rabtaa inaad dhahdid subaxii jimcaha, duhurtii jimcaha. hal maalin ayaa soo qaatay laakiin maalmaha oo dhan waa u isticmaali kartaa. Tusaale ahaan waxaan dhahay Friday morning. Friday morning waa subaxii jimcaha. Friday noon waa duhurtii jimcaha. Friday afternoon waa galabtii jimcaha. Friday evening waa fiidkii jimcaha. Friday night waa habeenkii jimcaha. Markaa rabtay inaad dhahdid jimcaha soo socda, waxaa leedahay next Friday. Jimcaha soo socda next Friday. Jimcihii lasoo dhaafay markaa rabtay inaad dhahdid, waxaa leedahay last Friday. Jimcihii lasoo dhaafay. Marka tusaale ahaan jimco kaliya ayaan soo qaatay laakiin waxaa ku bedeli kartaa meeshaas Sunday morning, subaxdii Axada. Sunday noon, duhurtii Axada. Sunday afternoon, meeshii jimco Friday ugu jirto waxaa galabtii Axada. Sunday evening, fiidkii Axada. Sunday night, habeenkii Axada. Next Sunday, Axada soo socota. Last Sunday, Axadii lasoo dhaafay. Marka saas ayaa ugu bedelaysaa 7 maalmood. Ereydan ayaa la isticmaali kartaa sidoo kale. Marka cashirkii maanta aan ku talagalnay inaan idiin soo gudbino intaa ayaa kusoo gabagabaynaynaa. Intaan ku kulmi doono cashirkan mid lamid ah waxaan kaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.